kulanti haboon daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada barnaamijka warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda waddanka hooyo ee Soomaaliya. barnaamijkan waa mid aan alaaba idinkugu soo gudbiyo arrimaha siyaasadda, amniga, arrimaha Soomaalida balse Soomaaliya ka baxsan haddii xilligaasi ay taagan yihiin. fadlan daawade nala soco horaanta ilaa iyo dhamaadka. warbixintan waxaan ku hormari doonaa oo aad ku daawan doontaan maxay keeni doonaan guddiga Rooble iyo Axmed Madoobe ay u direen Garbaharey. xogta 7 xubnood iyo aragtidooda ayaan daawadayaal idin hayaa. fadlan nala soco horaanta ilaa iyo dhamaadka. sida aan toddobaadkii hore bilowgiisa aan sheegnayba, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood oo loo xilsaaray xaaladda doorashada Garbaharey. waa goobta labaad ee yaalaan 16 kursi oo Jubbaland ka imaanaysa. dhanka Axmed Madoobe waxa uu si cad u sheegay shir ay dhawaan yeesheen hogaamiyaasha doorashooyinka in doorasho aan lagu qaban karin Garbaharey, bedelkeeda la qaato 2 go'aan mid ay tahay in loo wareejiyo Kismaayo iyo in meertadan laga reebo codeynta kuraastan oo mar kale la codeeyo. hadda waxaan eegaynaa maxaan ka aqaanaa 7 xubnood ee loo diray Garbaharey iyo sida ay ku yimaadeen. guddiga waxaa gudoomiye looga dhigay Abuukaato Cumar Maxamed Cabdille Dhegey, waa la taliyaha ra'iisul wasaaraha ee arrimaha doorashooyinka. sidaas oo kale waxa uu soo hogaamiyay guddiga FID ee doorashadii 2016. qaar ka mid ah xubnaha guddiga hadda shaqeeya ayaa ugu yeeray ruuxa sida dadban u maamulaya guddiga doorashada ee hadda dhisan. waa mid ku gowracan markasta aragtida ra'iisul wasaare Rooble iyo saaxiibadiisa ka soo horjeeda in Garbaharey doorasho lagu qabto. 2. Muuse Geele Yuusuf waa gudoomiyaha guddiga FID ee hadda. si cad waxaa loo ogyahay in Geele maalmihii ugu dambeeyay 3 xubnood isagaba ay ahaayeen kuwa xiriir gaar ah la leh ra'iisul wasaaraha. xubno isla guddiga FID ayaa rumaysan in Muuse uu wax ka ogaa warkii afayeenka guddiga ee ahaa in Garbaharey aan loo xadnimnaan doonin. mowqifkiisuna waa mid ku gowracnaan doona dowlad goboleedyada ay ka mid tahay Jubbaland oo ah in doorasho aan lagu qaban karin Garbaharey. 3. Sheekh Maxamed Cawil Warsame waa gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka oo labada dhinacba u dhaxeeyay waajibaadka shaqo ee uu siinayo habraacyada doorashada. meelna kagama oolin inuu qiimeyn ku sameeyo doorasho. sida la aaminsan yahay ra'iisul wasaare Rooble ayaa ku qurxiyay guddiga sheekha si loogu tuso in dhinacyo kala duwan ay ka dhex muuqdaan. 4. Maxamed Daahir Faarax waa mid ka mid ah xogayaasha xafiiska ra'iisul wasaaraha ay isku deegaanka ka soo jeedaan. mowqifkiisa siyaasadeed ee qadiyadda ku wajahana waa mid uu kala mid yahay gudoomiyaha guddigan Cumar Dhegey. 5. Maxamed Aadan Cusmaan waa xubin ka tirsan guddiga FID ee heer federaal kana mid ah 13 xubnood ee heer federaal magacowday. waa mid ka mid ah qaraabada dhow ee wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Carab oo kursigiisu yaala magaalada Garbaharey, tirsigiisuna yahay hub 119. guddiga FID ee hadda waxa uu qaabilsan yahay Maxamed dhanka amniga iyo kormeerka doorashooyinka. dhanka kale waa mid ka mid ah saaxiibada Fahad Yaasiin, la taliyaha amniga qaranka. sida kalena Rooble iyo Axmed Madoobe kama didsana, waana sababta guddiga loogu diray. mowqifkiisa waxa uu muuqdaa mid aan aqbali doonin in Garbaharey doorashada laga wareejiyo. Maxamed Aadan Ibraahim waa mid ka mid ah xubnaha ugu kalsooni badan yahay Axmed Madoobe ee guddigiisa SID ee heer dowlad goboleed ee lagu soo daray guddiga uu Rooble u diray Garbaharey. waa xogayaha guddiga Kismaayo doorashada ku qabtay. keenidiisa waxaa la xaqiijiyay inay ka timid dhanka Axmed Madoobe, mana qarsado aragtida ku aadan in Garbaharey kuraasyada la geeyo Kismaayo. Axmed Rokey Yuusuf isna waxa uu ka tirsan yahay guddiga SID ee Jubbaland. deegaan ahaan waa isku dhafka Jubbaland iyo Puntland. kalsoonida Axmed Madoobe ku qabo ayaana guddiga u soo waariday ka mid noqoshadiisa. shaqada ay guddigan qabanayaan ra'iisul wasaaraha ayaa ku sifeeyay 3 qodob. yoolka 3 qodobna waa inay tahay arrinta doorashada Garbaharey soo qiimeynteeda. haddii guddigan ay tagaan Garbaharey cod ay geliyaan soo qaybintooda, waxay ka dhigan tahay in 5 xubnood ay isku aragti yihiin oo ay haddaba aaminsan yihiin in Garbaharey aan doorasho lagu qaban karin, taasi oo muujinaysa natiijada guddigu inay banaan ka sii taalo. sida ay cadeynayaan ilo wargal ah, guddigu waxaa laga reebay 2 xubnood oo mid ka mid ah ka soo jeeday Galmudug. sababta ugu weyn ee loo reebayna ay ahayd inay soo jeedin karaan aragti kale oo tan ka duwan waa mid xubnaha kale ay qabaan.
waa hagaag barnaamijka warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda waddanka ayaa daawadayaal la socotaan meel kastoo aad joogtaan xilli wanaagsan ayaan idin leenahay intiina hadda inagu soo biirtay shakhsiyaadkaas magacyadooda aan akhrinayay waa shakhsiyaadka ku jiro guddiga 7 xubnood ka kooban ee ra-iisul wasaare Roble uu u diray magaalada Garbaharey ee xarunta maamulka Jubbaland si ay qiimeyn ugu sameeyaan in doorasho halkaasi lagu qaban karo. waa hagaag arrimo ra-iisul wasaaraha la xiriira ayaan daawadayaal sii wadaya. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa la soo baxay siyaasad cusub isaga oo haatan quuldareynayo in uu xiriir la samaysto musharax uu isleeyahay waad dhisi kartaa isla mar ahaantaana waa uu ku abaal celin karaa. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalaytu waxa uu Muqdisho ku soo bandhigay markaasi dhoolatus dhanka siyaasadda ku saabsan isaga oo la kulmay xubno ka tirsan golaha cusub ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu kulan markaasi la qaatay xildhibaanada beelaha banaadiriga ah ee dhawaan markaasi lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa la sheegay in uu kala hadlay xildhibaanadan cusub arrimo ku saabsan doorashada iyo weliba sidoo kale shakhsiga ay u codayn karaan sanadkan 2022 doorashada madaxweynaha. ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sidoo kaleeto si hoose ula hadlay xubnahan golaha shacabka ka mid noqonaya oo iyagu gaaraya ilaa 5 xubnood oo beelaha banaadiriga ah. waxa uuna ka dalbaday in ay markaasi taageero u fidiyaan weliba markan ay ka taageeraan isagu musharaxa uu doonayo inuu ku guuleysto xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. waxaana kulankan uga sii horeeyay ra-iisul wasaare Roble kulan kale oo uu markaasi la qaatay xubno markaasi ka mid ah golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare ee xildhibaanada reer waqooyiga inkasta oo xildhibaanadaasi sidii la filayay aysan ra-iisul wasaaraha ugu imaanin. durbadiiba ra-iisul wasaare Roble ayaa helaya dalabyo culus oo uga imaanaya musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba sidoo kaleeto Sheekh Shariif. ra-iisul wasaaraha ayna markaasi ka dalbanayaan in uu ku taageero xildhibaanada uu markaasi isagu heli karo balse waxaa la fahamsan yahay in ra-iisul wasaare Roble oo dulmajadiid hore uga tirsanaa in uu markaasi taageeri doono Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya. si kastaba madaxweyne Farmaajo ayaa isagu si iskiis ah u wataa ololihiisa ku saabsan dib u doorashada inkasta oo markii hore uu jeclaa inuu soo magacaabo markii la riday xukuumadda Khayre ra-iisul wasaare isaga dhisayo qorshahana uu sidaasi ayuuna ahaa balse ra-iisul wasaare Roble ayaa meel lama filaan ah markaasi uga soo baxay madaxweynaha taasi oo keentay in markaasi ay dagaalo fara badan oo siyaasadeed ay galaan. waa hagaag barnaamijka warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda waddanka ayaad la socotaan. daawadayaal doorashooyinka halis ayay ku jiraan sababtuna waxay tahay tallaabo uu qaaday Deni. haddaba maxay tahay tallaabadaasi daawadayaal aan isla fiirino wararka la xiriira dib u dhaca kale ee doorashada. warar hoose oo la helayo ayaa daawadayaal waxay sheegayaan inuu iscasili doono gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Mudane Muuse Geelle kaasi oo isagu dhawaan loo doortay xilka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka markii xubnihii guddigaasi ay hore shaqadii uga ceeriyeen gudoomiyihii ugu horeeyay ee guddigaasi Maxamed Xasan Ciro. gudoomiye Muuse Geelle ayaa la soo sheegaya in uu doonayo inuu ka mid noqdo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. madaxweyne Deni ayaa la sheegay in uu Muuse Geelle oo markii horeba isaga uu soo magacaabay sidoo kale tan uu kala shaqeeyay inuu gudoomiyaha guddiga doorashooyinka noqdo uu hadda u ballan qaaday inuu siinayo kursi xildhibaan isla mar ahaantaana arintaasi ay noqon karto mid sii daba dheeraysa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxa uu ka mid noqon doona xubnaha markaasi lagu dooran doono deegaanada maamulka Puntland. Muuse Geelle waxa uu sidoo kaleeto ku haween yahay waa Muuse Geelle inuu ku soo bixi doono kursiga oo Deni uu markaasi kursi u xiri doono shakhsigan waa Muuse Geelle. si kastaba haddii arintan ay dhacdo oo gudoomiyahan uu iscasilo waxaa haddana dagaal adag loo geli doonaa oo Villa Soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay markan ku loolami doonaan shakhsiga cusub ee markaasi loo magacaabi doono ama ku guuleysan doono kursiga gudoomiyaha ee guddiga doorashooyinka. qorshahan ayaana waxa uu yahay in
markaasi halis ku noqon kara madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa rajo weyn ka qabay in guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble ay qiimeynta ku sameynaya doorashada in ay ka dhici karto magaalada Garbaharey uu isagu hadda rajo ka lahaa in guddigaasi uu geeli gudoomiye ku-xigeenka ahaa in markaasi ay soo saari karaan war ku saabsan in halkaasi doorasho lagu qaban doonin balse haddii uu iscasilo waxay noqon doontaa arrin kale oo halis markaasi ku noqon karta hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dani ayaana qorshahani markaasi ka shaqeynaya daawada intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda waddanka intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaasi amaana Allah